madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukuumadda Soomaaliya ku bogaadiyay dadaalka ballaaran ee ay gelisay arrimaha doorashooyinka iyo fulinta doorkii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee kaga aadan heshiiska ay gaareen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowladaha xubnaha kaasi oo sidoo kale si wadajir ah u ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha aqalka sare 26 Sebtembar 2020. qoraalkan ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu adkeynayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay qabashada doorasho hufan oo ku saleysan habraacyadii lagu heshiiyay isagoona u mahad celiyay dowlad goboleedyada fuliyay qaybtii kaga aadanayd heshiiska doorashada iyo sidoo kale iyaga oo soo dhameystiray xubnihii ay ku lahaayeen guddiga doorashooyinka heer federaal iyo hirgelinta doorashooyinka qaranka. waxaa naga go'an in aan si buuxda u fulino heshiiskii doorashada iyada oo laga fogaanayo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada. sidaa darteed waxaan dowlad goboleedyada aan weli soo dhameystirin xubnaha ay ku leeyihiin guddiga hirgelinta doorashada ugu baaqaya in ay ka shaqeeyaan sidii looga dhaweyn lahaa qabashada iyo habraacyada lagu heshiiyey, innaga oo rajeynayna in sida ugu dhaqsaha badan ay u soo dhammaystiraan xubnaha kaga aadan ka qaybgalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ku dhiirigeliyay in ay si laba jibaaraan dadaalka ay ugu jirto sidii dalkan doorasho xilligeeda ku dhacda loo qaban lahaa. hadalkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa ibaanaya iyadoo weli ay ka taagan yahay khilaaf xooggan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya, isla markaasna mucaaradka u taagan xilka madaxweynaha ee Soomaaliya ee ku shirsan Muqdisho ay dhawaan soo saareen guddi ay ugu magac direen guddiga badbaadinta doorashooyinka qaranka Soomaaliya, taasi oo mar kale geed dheer sii saartay in xal laga gaaro arrimaha khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya. Maxamed Cabduqaadir Zilfa, codka bariga Afrika, magaalada Muqdisho. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom.